kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada ku xiran barteena YouTube ee Galka Media waxaan warbixinteena maanta ee Galka Media diiradda ku saari doonaa kala shaki soo kala dhaxgalay Farmaajo iyo Fahad iyo qorshayaal halis ah oo markaa socda maxay yihiin qorshayaashaasi ee ka socda dalka Qatar Fahad shirqoolka uu dhigay Farmaajo maxay tahay xilligan dawladda Qatar tallaabo ceenkee ahi ayay xilligan ka qaadan doontaa Fahad iyo waliba Farmaajo xogihii ugu dambeeyay kulamada sidoo kale ka soconaya wadanka Qatar ayaynu halkan kula wadaagi doonaa balse marka hore ku soo biir barteena YouTube ee Galka Media sidoo kale waxa aad markaasi noqotaa saaxiibada badan ee halkan sida tooska warbixinta maalinlaha uga qaata waa tahay kala shakigan ayaa waxa markaasi la soo warinaya in uu ku salaysan yahay kadib markii Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu la soo baxay qorshayaal halis gelin kara arrimaha dib u doorashada madaxweyne Farmaajo taas oo la aaminsan yahay waxa isku soo beegay safarka Qatar iyo sidoo kale dhinaca iyo waliba tallaabooyinka uu qaadayo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo xilligan isu diyaarinaya sidii uu u heli lahaa kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ee golaha shacabka Soomaaliya iyadoo oo ay kursigiisa kor u hayaan xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal waxaana tafaha ku dhagan ra'iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Roble oo la aaminsan yahay in khilaaf culus uu markaa kala dhaxeeyo xogta la helay ayaa waxa ay tilmaamaysaa tallaabooyinka uu qaadayo ee isxixiga la taliyaha dhanka amniga qaranka xildhibaanka kursigiisa lagu muransan yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir taliyihii hore ee nabasugidda iyo sirdoonka qaranka waxa ay markaa loo sababaynayaa in ra'iisul wasaaruhu dagaal hoosaad markaa kala dhaxeeyo taas oo uu xilligan qorshihiisa arrimaha siyaasadda uu bedelay xogta la helayo ayaa waxa ay tilmaamaysaa in guud ahaanba qorshahan uu yahay mid marka uu ku doonayo in siyaasadiisa dhanka musharaxnimada qofka uu daaha gadaashiisa ka maamulayo oo uu bedelo Fahad Yaasiin sida dhinacyo badan oo siyaasadda odorosa ay tilmaamayaan Farmaajo kulankiisa Qatar uu markaa la qaadanayo mas'uuliyiinta waxa ka sii horeeyay kulan inta aan markaasi xildhibaanka loo dooran Fahad Yaasiin uu la qaatay amiirka wadanka Qatar taas oo la rumaysan yahay in gogol xaar uu ahaa safarka uu haatan ku joogo wadanka Qatar ninka markaa xilligan lagu magacaabo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xogaha la helayo ee isa soo taraya ayaa guud ahaanba waxa ay tilmaamayaan in xilligan Qatar ay madaxweyne Farmaajo ku qancin doonto in muddadii 2 sano ahayd uu markaa sidan ku dhameystay sidoo kale loo baahan yahay isbedel dhab ah inuu dalka ka dhaco maadaama xilligan aragtidiisa siyaasadeed aysan gadmi karin sida dhinacyo badan ay markaa tilmaamayaan xogaha la helayo ayaa tibaaxaya sidoo kale in guud ahaanba dhinacyo kale uu xilligan Fahad Yaasiin ku xiran yahay sida Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre oo 90% la aaminsan yahay in xilligan uu markaa wado loolankii ugu dambeeyay ee ku aadan iyadoona markaa ay si hoose xiriir u leeyihiin la taliyaha dhanka amniga ee qaranka madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ah xildhibaan kursigiisa lagu muransan yahay Fahad oo xilligan wada marka abaabul ka dhan ahi dhinacyo badan oo ka tirsan midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale waxa uu kala dhantaalay siyaasadda dadka marka isaga ka soo horjeeda siyaasadiisa ee daaha gadaashiisa laga maamulo xogaha la helayo ayaa sidoo kale xilligan waxa ay yihiin kuwa isu biirsaday dhanka iyo waliba Fahad Yaasiin oo shaki weyn laga muujiyay safarkiisa Qatar uu ku tagay bil ka hor iyo sidoo kale safarka haatan Farmaajo uu ku joogo dhinaca iyo waliba wadanka Qatar maxaa xilligan isu soo beegay iyadoo markaa xubnaha xildhibaanada harsan ay yihiin tiro wax ka yar 100 xildhibaan waxaase markaa la aaminsan yahay in qorshahaasi ay gadaal ka riixayaan dawlado kale Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale wadanka Qatar ayaa loo arkaa in xilligan markaa loolanka ugu adag ee doorashooyinka Soomaaliya uu dhexmari doono xilli Imaaraadka uu markaa lacago badan siinayo ilaa iyo waliba ku dhawaad 4 musharax sida markaa nala xaqiijiyay balse Qatar ayaa xilligan istiraatiijiyadeeda siyaasadeed waxay u bedeshay in guud ahaanba la soo afjaro awoodaha xilligan ee Imaaraadka ay ku leeyihiin Soomaaliya iyadoona Qatar ay xilligan si weyn u danaynayso shidaalka Soomaaliya
dowladda Soomaaliya guud ahaanba marka loo eego arrimaha xilligan Qatar kala dhaxeeya ayaa sidoo kale waxa la aaminsan yahay in wakiilkeeda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu loolanka adag uu xilligan ugu jiro sidii dowladda Qatar ay u sii maamuli lahayd siyaasadda waddanka Soomaaliya tan iyo burburkii wixii ka dambeeyay 1991 Soomaaliya waxay ahayd mid markaasi doorashooyinkeeda ay ku hardamaan dalal kale oo ay markaa ugu horeeyaan Sacuudiga, Qatar, Imaaraadka Carabta kuwaas oo la aaminsan yahay in durbaba xilligan ay wadaan loolan ku aadan arrimaha markaa ku saabsan ee dhinaca doorashooyinka ee dalka. Imaaraadka Carabta ayaa la aaminsan yahay in maamulka madaxweyne Farmaajo xiriir wanaagsan uusan kala dhaxayn balse taa beddelkeeda Qatar waxa markaa la leeyahay haddii Farmaajo uu la yimaado qorshayaal kale oo markaa ay kaga gadmi karo dowladda Qatar ay markaa nafta duldhigi doonto sida ay xoguhu tilmaamayaan. lama oga xaalka doorashada iyo waliba halka uu ku dambeyn doono inkastoo dhinacyo badan ay xilligan soo warinayaan qorshayaasha ay wadaan guud ahaanba Fahad Yaasiin iyo sidoo kale xubno sirdoon oo uu markaa si weyn ugu xiran yahay oo dowladda Qatar ka tirsan. Qatar siyaasadeeda markaa ku dhisan in uu wakiilka uga yahay Fahad Yaasiin ayaa sidoo kale la soo warinaya marka ay ka timaado dhinaca iyo waliba qorshaha ay ka leedahay doorashada madaxtinimada ee dalka in ay la timaado qorsho ay Fahad kaga bedelayso guud ahaanba wakiilnimada siyaasadda ee Soomaaliya. xubnaha midowga musharaxiinta ayaa la soo wariyay in kulanka Farmaajo sidoo kale walaac xoogan ay ka muujiyeen balse lama oga tallaabooyinka kale ee isxiga dhinacyada xilligan ee midowga musharaxiinta ay qaadi doonaan halka la soo warinayo in Imaaraadka Carabta wali uusan la soo bixin falsafada lacag bixinta ee ku aadan in markaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ay markaa iska siin jireen lacagta sanadkan ay wax badan ka bedeleen balse ay diidayaan oo guud ahaanba ay ka soo horjeedaan in lacagaha meel cidla ay markaa isaga bixiyaan taas oo dhaqaalahooda markaa hoos u dhac ku keentay 4 sano aynu ka soo gudubnay ee madaxweyne Farmaajo dagaalkii ugu adkaa uu la galay dowladda Imaaraadka Carabta. lama oga dowladaha kale ee ku soo biiri doona siyaasadda waddanka ee Soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka inkastoo Mareykanka horey uu markaa dowladda Qatar iyo Imaaraadkaba uga digay inay faraha kala baxaan arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya sidoo kalena ay joojiyaan musharaxiinta ay siinayaan lacagaha isku sharaxaan taas oo xilligan uu Mareykanka ku guuldareystay inuu ka hor istaago dhinacyada Imaaraadka iyo sidoo kale Qatar. awoodda ugu badan iyo waliba digniinta ugu culus ee la duldhigay dowladda Qatar wali ma aysan ka jawaabin balse waxa ay wali iska sii wadataa howlaheeda ee ay ku garab istaagayso maamulka madaxweyne Farmaajo inkastoo sanadkan wax badan ay isbedeli doonaan sida quburo Soomaaliyeed oo ka faallooda ama odrasa arrimaha siyaasadda ee doorashooyinka waddanka xaqiijinayaan. guud ahaan daawadayaal waa naga intaa warbixinteennii gaarka ahayd aynu ku eegayno kala shakiga soo kala dhexgalay Farmaajo iyo Fahad qorshaha dowladda Qatar xilligan waa naga intaa wixii warar oo arrimahaasi ku soo kordho kulamada ka socda waddanka Qatar halkan ayaa toos kala socon doontaan balse mar kale waxaan idinka codsanaynaa inaad ku soo biirtaan barteena YouTube ee Galka Media oo aad ka mid noqotaan saaxiibada badan ee halkan markaa ku taxan oo warbixinada kala socda tan iyo kulan dambe nabadgelyo.